ardayda Boosaaso Public Secondary School waxaan halkan ka soo jeedinayaa in la yiri yani anagoo arday foonfoora oo 12 sano wax soo baranay xaqna u leenahay in shahaadada buuq la geliyo oo labada dawladood ay madaxa isla galeen waxaan kale halkan ka sheegayaa yani anagoo arday Soomaaliya nahay Soomaaliya ha noolaato waxaan sheegayaa inuu yiri wasiirka waxbarashada yani waxaan arkay arday yani shahaadada Puntland waxay ku tagtay Uganda laakiin waxa waa khiyaale arday walba oo Puntland ka taga wuxuu shahaadadiisa ku dhigsadaa Soomaaliya waxaan nahay Soomaali mana doonayno anagu Puntland Soomaaliya ha nigawdo kana ka sheego oo digniin ugu diro cid kasta oo dawladda federaalka mucaaradka anagu waxaan garab taaganahay dawladda iyada waxaan u baahanahay imtixaan aan ku qanacno mustaqbalka iyada hooyooyinka iyo darbiyada ayaa la fadhiyaan bartiina ka soo jeeday waxay tahay inaan u sheego cid kasta Soomaali diida anaga Puntland waxay noo tarayso male waxaan nahay Soomaali waxaan doonaynaa hal imtixaan aan wadano waa mid labaad Soomaali baan sheeganaa waxaan ugu baro waa English haddana Soomaali oo ugu baro haddana aan macnaha aan sheegin ciidda Soomaaliyeed aan leeyahay Soomaali baan ahay waxaan isku haystaa shahaadada qaadaya kuwa qaadaya inaan qof Soomaali waxaan ahay qof ku soo bartay luqadda Ingiriiska laakiin anigu waxaan doonayaa bartiina ka sheego waxay tahay waxaan doonaynaa luqaddeena inaan soo cesho waxaan doonaynaa Soomaali ku barno waxaan doonaynaa inaan noqono Soomaali isku tiirsan dad dalkooda dadka wax u qaban kara Puntland marna kala qaybsiga Soomaaliya marna anagu Soomaali baan nahay Soomaali arna khalkhal magrabna inuu laga galo wasiirka Puntland khalkhal laga galo shahaadada marna Soomaaliya analaata Puntland waxaan kan ugu mahadcelinayaa buuqa dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee halka taagan iyo SBC oo helan danaha bulshada Soomaaliyeed maanta waxaan soo booqday wasiirka waxbarashada Soomaaliya waxa uu ka dhawaajiyay ilmahan kuma jiro waxaan soo booqday wasiirka waxbarashada Puntland waxa uu ka dhawaajiyay in dalal badan lagu tii karo shahaadada Puntland saasha wadada wasiirka waxa weeye ma ictiraaf koob baa shahaadada bixinaysa madaxweynaha wasiir see wax ku wada maamul goboleed baa tahay shahaadada xagga laga qoosaya riyaadka iyo xaqiiqada waxaan rabaa meeshan bari khaasan iskoolka dugsiga sare Boosaaso Public Secondary School waxaan maanta ka haynaa shahaadada muranka gashay ee Soomaaliyeed ana runaantii waxaan arday Soomaaliyeed